bisha ramadaan marka waxay ka mid tahay zamanka ilaahay oo fadliga gooniga siiyay buu ka mid yahay soonka waxa laga dhaxlaa nolosheena inuu ku reebo isbedel waa tarbiyad waxa laga soomayna baadiye biyo kaliya ma ahina hadalka xun baa la rabaa in laga soomo fadligeeda waxa ka mid ah oo ilaahay ku fadlilay tabaaraka wa tacaala tiirka afaraad oo tiirarka islaamka ka mid ah ayuu bishan ilaahay geliyay tabaaraka wa tacaala tiirka soonka waa tiirka afraad oo soonka waajibka oo faradka ah bisha ramadaan buu ilaahay ka dhigay markhaatiga beenta dadku ay furayaan in laga soomaa la rabaa laqwiga in laga soomaa la rabaa man lam yadac qawla الzuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaaja في أن يدع طعامه وشرابه نك أنا كتجين بالنبي يقول هذا الكحن ما لا يعني عيدا يا كفتنك يا حنتا يا مرتانا يا مرقة بين لها قفك أنا كتجين يا عمل كشرع إنكري قفك أنا كتجين إلى هاي دنك ما لبوا النبي يقول إنه هالرادي قاعد قفك أسود له نبي محمد وحي عليه الصلاة والسلام شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة لببلود من ناقصان ama ma dhinmaan ama ma naaftaan waa labada bilood ee ciiddu ku jirto waa bisha ramadaan iyo bisha la yidhaahdo dulxija ee ciidda carafa ay ku jirto ma nuqsaamaan waxaa ka mid ah waxyaalaha fadaa'isha ay leedahay acmaasha la sameeyo khayrka la sameeyo bisha ramadaan la mid ma aha bilaha kale cumradii baa waxaa la yidhi haddaad ramadaan gudataan xaj bay u dhigantaa way ka duwan tahay bilaha kale ictikaafkii ayaa ka duwan oo bilaha kale uma badnay nebigu inuu ictikaafo sal alla alay wasalam ramadaan buu ictikaafis jiray weliba 10ka dambe ayuu u badnaa sidaasay xaasaskiisu markuu dhintayna ka dhaxleen oo saxaabadiisii ka dhaxleen sidaad biyaha uga soonteed baadka uga soontay ayaa la rabaa ishaadu inay xumaanta ka soonto oo dhegtaadu laqwiga ka soonto oo maaragtaane calooshaadu xaaraanta ka soonto oo gacantaadu xaaraanta ka soonto oo lugtaadu meesha xunay maraysa ka soonto oo wakhtigaagu meesha xun uu ku baxayo inaad ka soontaa laga rabaa waa fursad bishan waa bil barakaysan waa sir soonku waa sir ilaahay addoonka ka dhaxeeya abaalkiisana ilaahay waa inoo qariyey halka acmaasha kale saalixaadka thawaabkooga laynoo sheegay salaada oo kale ramadaan kol haddii ay soo gasho futixat abwaabu الsamaa wagulliqat abwaabu jahannam wasulsilat الshayaaطiin mar alla markaa ramadaan ay soo gasho waxbaa iska bedelaya caalamkii ilaahay u abuurtay subxaana wa tacaala iyo ilaahay khalqigiisii markaasaa samadan ay naga sarraysay albaabadeedii baa la furayaa waxaa la xidhayaa naarta albaabadeedii shayaadiintiina waa la silsiladaynayaa waxaa ka mid a sanadka oo dhan habeenadiisa habeenka ugu fadli badan ayaa bishan ilaahay geliyey iyadana lalama wadaago waa habeenka laylatulqadriga oo sheekhu sharxay oo khayrkiiyo daacada lala yimaadaayey ay u dhiganto 1000 bilood khayr lala yimid oo kale sanad haddii loo bedelana waa 83 sano iyo siyaado waay hal habeen shaqo aad qabatay baa waxay u dhigantaa 83 sano wax caadi ma acmaasha kaloo dhan thawaabkooga waa laynoo sheegay janna 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 la yidhi laakiin soonka markay noqotay ilaahay baa le fainahu lii wa ana ajzi bihi soonka anigaa iska leh anigaana addoonka ka abaalmarinaya baa ilaahay yidhi soonka abaalkiisa lama sheegin oo la qariyey habeenana waxaa ugu qaalisan habeenada ku jira bisha ramadaan ee u dambeeya ee ilaahay uu ku dhaartay waalfajri walayaalin cashr bishu sidoo kale waxaa ka mid a fadaa'isheeda waa shahrulmaqfira waa bil dembi dhaaf wey ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa waa cafiyaa
وسامحة jaanistaynu ka faa'iidaysanayno maadaamuu xidhan yahay cadowgii alcaduwu alladuud cadowgii ugu khatarsanaa insaanka ee wax alla waxa khayra kaala dagaalamaya oo shaydaana inaynu badsanno khayrka oo akownka aynu khayrka aada u buuxinno qur-aanka baa ilaahay tabaaraka wa tacaala iyadana ku gooni yeelay soo degiddiisii siduu sheekhu hadda sharxaya sheekh maxamuud soo degiddii qur-aanka baa bishan lagu khaas yeelay iyadana waa fadli iyo dheeraad ilaahay siiyey oon lala qabin bishan marka waxa aynu u rajaynaynaa insha allahu tacaala qofka ramadaan dhinta ashahaadanaya islaama inuu ilaahay jannada albaabadeedu furan yihiinna ku casuumuu geeyo naaraha xidhanna laga duwo